haddii aad si adag u shaqayso adigoo berri sugaya waad helaysaa hamigaaga. Tani waa tusaale wiilka reer Senegal Sadio Mane kaasi oo ah ku riyooday maalinuu inuu arko isagoo ku jira garoon coosle. Muuqaalkan waxaanu ku eegi doonaa xaqiiqooyin ku saabsan Sadio Mane muxuu ula noolaa qoys aan qoyskiisa ahayn, maxay ahayd sirta ka dambaysa rigooradii khalkhalgelisay nafsadiisa iyo tan qoyskiisa, sidee buu ku soo galay Premier League xidigan kuma ku dayda. xubintan waxay ka qayb tahay silsilado iyo waliba xalaqooyin aanu ka samayn doono barnaamij aan ugu magac darnay xaqiiqooyinka xidigaha. fadlan subscribe saar, like dhe, share asxaabtaada la wadaag, lana soco qaybaha dambe ee xalaqooyinkan. Sadio Mane wuxuu ku dhashay 12 Abriil 1992 tuulada Sadiho ee koonfurta Senegal. Wuxuu ka dhashay qoys sabool ah oo si adag u haysta diinteena suuban ee Islaamka. Aabihii wuxuu imaam ka ahaa masjid ku yaala tuuladaasi. Hooyadiisna waxay ahayd guri joogto jeclayd in wiilkeeda uu raaco wadada aabihii, balse Mane ma aysan u muuqan taasi. waalidkii ma aysan dhaqaale mana awoodin inay ka bixiyaan waxbarashada, waxaana isagu ahaa inta badan mid ciyaari jiray kubadda cagta. markasta uu kubadda arko wuxuu la ciyaari jiray saaxiibadii. waxaa dhici jirtay mararka qaarkii in 3 kiiloomitir uu soo lugeeyo, 3 kiiloomitirna u sii lugeeyo marka uu dib ugu laabanayo xaafadiisa. tareenkiisa kubadda cagtana Mane marka uu yaraa waxa uu ahaa mid ku fiican kubadda cagta, isagoo ahaa kan ugu fiican magaaladaasi. walow waalidiintiisu ay ahaayeen kuwa doonayay inuu maro wadada aabihii, laakiin isagu waddo kale ayaa u jeexnayd. markii uu gaaray da'da 15 jir waxa uu go'aansaday noloshiisa isaga ay ku kaliyoodo isla markaana ay ku tiirsanaato, isagoo u safray magaalo 500 mayl u jirta caasimadda magaalada Dakar. waxaana caawinaya isla markaana si weyn u garab taagnaa adeerkii. wuxuu tagay xarun tababar akademiyadda lagu magacaabo The Generation. markii uu tagay xaruntii akademiyadda, mid ka mid ah kaaliyaashii imtixaanka qaadayay ayaa ku yidhi, adigu ma waxaad u joogtaa inaad imtixaan gasho? weliba kabahan sideed ugu ciyaaraysaa? waa ay duugoobeen misna waa ay gogo'an yihiin. weliba surwaalkan ma haysatid miyaa surwaal kale oo ku habboon kubadda cagta? balse Mane ayaa ku jawaabay, waxaan la imid kii ugu fiicnaa aan haystay. waxaan u imid inaan tijaabiyo naftayda, weliba aan soo bandhigo waxa ugu fiican ee aan hayo. markii uu garoonka galay isla markaana uu soo bandhigay xirfadiisii, marqura waxaa isbedelay maskaxdii kaaliyaha, isagoona la yaabay xirfadda ninkan ku duugan. waxa uu go'aan ku gaaray inuu ka mid dhigo Mane akademiyadda The Generation 4. sidoo kale adeerkii keligii ma ahayn dadka garab istaagay isla markaana caawinayay. Mane markii uu wareegay caasimadda Dakar wuxuu la noolaa qoys ay saaxiibo ahaayeen adeerkii, kuwaas oo si weyn u garab istaagay ilaa iyo sanadii 2011 markaa oo Mane ku biiray naadiga Nice oo waqtigaasi xiriir la lahayd akademiyadda The Generation 4. waxa uu sanad kadib u wareegay Red Bull oo ka dhisan Austria, halka sanadkii 2014 uu tagay dhulka reer Ingiriis kuna biiray kooxda Southampton. markii uu bandhig fiican soo muujiyayna waxaa dalbaday Klopp oo aakhirkii geeyay gegada Anfield ee kooxda Reds Liverpool. heshiis qiimihiisu gaaraya 34 milyan oo ku noqday kii ugu qaalisana Afrika ayuuna ugu biiray gegada Anfield. Mane wuxuu ka mid yahay xidigaha kubadda cagta ciyaara kuwooda sida adag u haysta diinteena suuban ee Islaamka, waana wax caadi ah maadaama uu ku soo barbaaray guri muslim ah. sidoo kale ma cabo khamrada, mana ogola inay salaada ka tagto xitaa marka uu ku jiro tababarka. waxaana taasi ay soo dadajisay in Liverpool ay u samayso goobo xidigaha muslimiintu ay ku cibaadaystaan markay ku jiraan tababarka. Mane waxa uu sidoo kale aaminsan yahay diinteena Islaamka inay tahay iscafin iyo weliba ilaalinta xaqa walaalkaaga, isagoo sidoo kale ka qayb qaatay acmaalo badan oo khayri ah. wuxuu mashaariic badan oo khayri ah ka fuliyay tuulooyin kala duwan oo ku yaala dalkiisa. wuxuu masjid ka dhisay tuuladii isaga ka soo jeedo ee Sadiha ee ku taala koonfurta waddankaasi Senegal. kubadda cagta waxay mararka qaar isu badashaa waxaan laga filaynin, iyadoona boos aan laga filaynin istaagta, isla markaana waxay ka gudubtaa xad kasta. waxaana tani ay ku dhacday Mane kadib markii uu lumiyay rigooro go'aamin lahayd ciyaartii finalka ee qaramada qaaradda Afrika ee xulkiisu ay la yeesheen Cameroon. waxaana dhacday in taageerayaal caraysan ay weeraraan hoyga guriga waalidkii, halkaas oo lagu gubay gaari uu lahaa adeerkii oo lagu qiyaasay 25,000 oo geniga sterlinka.
iyo agab kale ka hor inta aysan soo faragelin ciidamada ammaanka nabadgelyada dalkaasi Senegal. Mane wuxuu ku guuleystay 2 koob taariikhdiisa kubadda cagta wuxuuna la qaaday kooxdiisii hore ee Red Bull. Liverpool wuxuu ka helay 2 abaalmarin xidigii ugu fiicnaa bishii August sanadkii 2017 iyo xidigii ugu fiicnaa Liverpool xilli ciyaareedkii 2017. wuxuu jibiyay rikoorkii saddexleedii ugu dhaqsiyaha badnayd kadib kulankii dhex maray kooxda Southampton iyo waliba Aston Villa. markaas uu ku dhaliyay 2 daqiiqo iyo 56 second waxaana rikoorkaasi hore u haystay Robbie Fowler oo u ciyaariyay kooxda kubadda cagta Liverpool kaasoo 5 daqiiqo ku haystay rikoorkaasi. waqtiyada firaaqada uu yahay Mane wuxuu jecel yahay inuu dabaasho isla markaana uu daawado muuqaalada kala duwan. sidoo kale wuxuu jecel yahay shineemooyinka. Mane saaxiibkiisa ugu dhow Liverpool uu ku leeyahay waa Mohamed Salah waxayna yihiin kuwa si weyn saaxiibo ugu ah halkaasi. isagoo markasta si weyn ugu dayan jiray taariikhdiisa Ronaldinho marka laga eego caalami ahaan halka maxalli ahaanna uu isagu si weyn u jeclaa Alxaaji Duyuuf. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan ha naga bakhiilin like share si asxaabtaadu ay u gaarto isla markaana subscribe saar si muuqaalada cusub ay ku soo gaaraan. aad baana ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkani.